وتعي warbixintaas ayaa daawanayseen ee ka hadlaysay wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo qorsheynaysa soo bandhigtay manhaj waxbarasho ilaa galaaska afraad ah kaas oo muddo burburkii kadib ay dawladda hadda ay rabto in dalka laga hirgeliyo. haddaba si arrimahan aan wax badan uga ogaano ayaa waxa studio hadda nala jooga barnaamijka wardheere martii noogu ah Xasan Maxamed Cali oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya. agaasime wardheere goobjoog TV ku soo dhawow marka hore. maasantahay marka xigta waxaan rabnaa inaad ka warbixisid waxaad soo bandhigteen manhaj waxbarasho oo rabtaan in Soomaaliya laga hirgeliyo oo ilaa galaaska afraad ah. muxuu galaaska afraad ugu ekaaday? aad u maasantahay runtii fursaddan waa fursad qaali ah oo runtii aan rabno in ummadda Soomaaliyeed la gaaro lana gaarsiiyo warbixinta ku saabsan manhajkan. marka hore shalay waxaan soo bandhignay waxay ahayn waa textbooks ama waxay ahayn bugaagta wax laga barto ardayda. bugaagta waxaa ka horeysay runtii waxaa ka horeysay manhaj sidiisaba. manhaj ma aha textbook ma aha buugga kaliya wax laga dhigto ma aha. Soomaalida markaad weydiiso waxay ku leeyihiin su'aalaha badan oo noo soo noqnoqda waxay ahayn manhajka hal la mideeyo. Soomaaliya waxaa jira manhaj fara badan dhowr manhaj jirto meel laga kala keenay. runtii manhaj ma ahayn waxaas waxay ahaayeen bugaag wax laga dhigto laga soo qaaday ama Kenya laga keenay ama laga keenay imaaraadka ama qof kasta buuggii uu helay ayuu keensaday maadaama wadanka burbur uu ku dhacay. hadba ururkii waxbarashada ay waxbuu iskuul walba iyo macallin walba buug uu helay ayuu isticmaali jiray. kaas marka manhaj ma aha. kaas waa textbook oo wax laga dhigto. manhaj waa wax qaabaysan oo ka tarjumayo ujeedada waxbarashada dalka. waa fikir badan oo qaabaysan oo ka tarjumaya qiyamka wadankaas ama qiyamka dadkaas ay leeyihiin. waa wuxuu ka kooban yahay manhajka waxyaabo fara badan oo ka kooban yahay. textbook waa qayb ka mid ah ama buugga wax laga barto waa qayb ka mid ah manhajka. markii ugu horeysay waxaan sameynay qaab dhismeed oo aan bishii May 9keedii 2017 la soo bandhigay. waxaan soo bandhignay qaab dhismeedkaas waxa waaye sidee ayay noqonaysaa waxbarashada dalka, maxaa lagu saleynayaa. waxyaabaha ugu waaweyn oo lagu saleeyay wuxuu ahaa marka annaga waxaan rabnaa arday Soomaali ah muslim ah inuu noqdo. yacni qiyamka uu ku dhisan yahay waa qiyam islaam, waa qiyam Soomaalinimo ah, waa qiyam nabadkooda noolaansho ah, qiyam ah in uu maaragtay ummadda waa falsafada ka leeyihiin waa manhajkan Soomaaliga ah. falsafada laga leeyahay Soomaaliya waa gartay. qaab dhismeedkaas waxaa kaloo ku dhisnaa qaab dhismeedka wuxuu ahaa outcome based waxa la yiraahdo miro dhal. maaha cunugan waxaa la rabaa markii ay dhamaato waxaa la rabaa cunug in la yiraahdo war cunugan muxuu qaban karaa, maxaa ka soo baxay xisaab aad u dhigtay okay xisaabtii cunugan muxuu ka faa'iiday, maxaa ka soo baxay xisaabtii 12 sano wax soo dhiganay cunugan maxaa ka soo baxay. يعني مير دل أيو كسليسية كي هو رواية هو وحوها و subject based وحوها مير دل كمركا إلى وقتيسين سوما أضربتان مير دل وقتيسية إلى قرما أقول لك شيء وحو كسليسية مير دلكو ما دول وحيلا هاي سنة كوات عنق مركو فصل كوات لما أما بعد حساب أما بعد أف صوماليا محل سوى عنق إنه يقانو محل سوى عنق نوعين وأيون قولي أقرن معنا أو قولي أقرن منهج كجودنا محل ربع منهج كوسكابايا af Soomaaliga sida loogu talagalay diyaarinta manhajka loogu talagalay marka qaab dhismeedkan waxaa diyaarsan ilaa fasalka 12aad oo dugsiga sare ah. uu qaab dhismeedkaas uu diyaarsan yahay oo bishii May 2017 ayaa la ansixiyay. waxta golaha wasiirada waa la geeyay waa la ansixiyay waa qaab dhismeedka baarlamaanka wala kulimeel baarlamaanka ma u baahna waa golaha wasiirada ayaa soo ansixiyay uma baahna baarlamaanka waxa u baahan sharciga u baahan sharcigan wuu yaalaa. manhajkan waxaa laga soo dhiraandiriyay siyaasadda waxbarashada dalka iyo sharciga waxbarashada dalka oo qabyo qoraalka ah ayaa laga soo dhiraandiriyay. marka wuxuu ka hadlaa ujeedada Soomaaliya haddaan nahay maxaan ka rabnaa waxbarashada ardayda soo baxaysa arday noocee ahaan rabnaa inay maaragtay ay soo baxaan fasalka 12 markay waxyaabaha hadda socdo waa waxa loo dhigayaa buug ka yimid juqraafi oo waxa loo dhigayaa oo Kenya ka yimid ayaa loo dhigaa. juqraafiga Kenya wuxuu ku saleysan yahay mabaadi'da Kenya ku saleysan yahay. cunuga Kenyaanka ah waxa laga rabo markuu soo noqdo ayaa ku jirto. waxaa ku jirto dugsiga sare juqraafi oo kale waxaa ku jirto magaalada Kismaayo kale inay ka mid tahay wadanka Kenya. cunuga Soomaaliga marka loo dhigayo buugaas juqraafiga oo Kenya laga keenay waxa uu baranayaa in Kismaayo ka tirsan tahay Kenya.
inkastoo macalinka uusan saas inuu ugu dhigan isu tagan noqon karin dhibka ugu weyn oo jiro waxa waaye buuggii raacay buuggina saas ku qoran marka waxyaabaha aan rabno waxay tahay cunuga Soomaaliya inuu barto wadankiisa inuu barto dhaqankiisa inuu barto diintiisa inuu barto waxyaabaha agabka dhaqaalaha wadanka laga helo juqraafi ahaan wuxuu yahay yani marka wuxuu ku salaysan yahay marka taas marka wadaniyad iyo dalka iyo muhiimad in Soomaaliya ay ahaadaan marka lagu saleeyo marka laga yimaado laakiin meel laga soo qaatay manhajka marka sameeynayeen ilaa meel ibrahimiin ka bilaabeen wayna kala duwan yihiin thaqaafadaha ama dhaqanka waxbarasho dunida marka idinka tarjumaad hadii marka aad sameeyeen oo kale yaa manhajkan basic oo ka dhigtay marka laga yimaado qaybtan soo qofka Soomaaliya waxa ardayga Soomaaliya waxa ka rabtaan manhajkan runtii manhajkiisa ma la minguuriyo manhaj lama minguuriyo buugta waa la minguuriyaa laakiin buugta laftirkeeda ma aan soo minguurin buugta waxaan aad ugu dadaalnay inaana la minguurinin oo cid walba oo copy keentaba waa ku celinayna waxa jira guddi ku celinaya waxa la rabaa in hal abuur tusaalaha ardayga la barayo ama xisaabta ama sayniska ah tusaale waxa la rabaa inuu noqdo oo relevant ah tusaale la xiriira bay'ada wadanka tusaale la xiriira waxa wadanka ku salaysan yahay marka waa la alifay buugtan reference waa la isticmaalaa adduunka oo buug kale waa la fiiriyaa si ay u qoran yihiin buugta hore Soomaaliya manhajkii hore Soomaaliya wuu yaala waa la soo qaaday reference ahaan oo isticmaalaynay oo buugta hore Soomaaliya oo waagi dawladda ay jirtay inkastoo xilli hore ay taas laakiin falsafad ahaan iyo maaragtay waxyaabaha uu ku saleysnaa inta wax dhaqaalaha wadanka ku saleysnaa waxyaabahaas laga soo qaatay laakiin waxa aad ugu dadaal inuu buugaan noqon buugta la qorayo inaysan noqonin buug meel laga soo koobiyay oo la soo paste garay macallimiintan waan u sheegnay muddo sanad ah ayay socotay qoraalka buugtan waxa jiro kale guddi qoran buugta oo maado walba ilaa 3-4 qof ah waxa jira guddi kale oo supervision ah oo kormeeraya shaqadooda oo markay buugga keenaan dib u akhrinaya buug kasta waxa laga fiirinayaa habka loo qorayo ayaa la fiirinayaa waxa la qorayo ardaygani ma la tahay da'diisa ma tahay ma fahmi karaa waxaan luqadda saxmiya wax uu ardayga fahmi kara miya wax bi'adamiya wax wadanka maslaxad u lamiya dhaqanka ma kor imaanay waxyaabaha hoos oo laga fiirinayo aad ama tahay marka inta hadda burburka lagu jiray waxa laga yaabaa guddiga dadka ku jiray in iyagu naftikooda ay thaqaaf ahaan ama dhaqan ahaan ay kala duwan yihiin oo waxbarashada waayihii dambe qofba waxba luqado wax ku baranay marka taas naftigeeda isbarbardhigeeda ama balancegeeda ma la fiiriyo si uusan dhinac ugu badan waxa aad loogu dadaalay markii dadkii qoray laftirkooda waa dad CV-gooda inta la soo dalbadeen interview laga qaaday la fiiriyay background-kooda iyo maaragtay waxbarashadoodii aad loo fiiriyay oo dad laga soo xulay oo waliba aan lagu deyn xulkaasna oo la kormeeray oo la ogaa waxyaabaha qoraan oo markay soo qoraan laga fiirinay marka runtii buuggan waxa dhigi karnaa oo hadda soo baxay oo waa qayb kamid ah manhajkii markii qaab dhismeedka la sameeyay waxa la sameeyay syllabus ama muqarrar la sameeyay muqarrarkaas oo qayb ka ah muqarrarka marka la sameeyay waxa la sameeyay wax kale oo asal la yiraahdo scope and sequence maadada laftirkeeda sidee deeply oo hoos loo galaya مثلا حسابه لو دغايا فصلك كواد حسابتاس لو دغي مثلا waxa loo dhigaya algebra jabtar kasta oo wixii uu jabtar kasta how deep uu galaya hadda fasalka labaad markuu gaaro uu soconaa curriculumka laftirkiisa ama buugtan waxay u qoran tahay curriculumka waa noocyo badan yahay nooc la yiraahdo spiral waa uu wareegaya wuxuu u wareegaya مثلا isku daridoo kale ama isku dhufashada way soo noqonaysaa fasalka koowaad fasalka labaad fataad laakiin waxay sii noqonaysaa way sii adkaanaysaa fahamkan uu sii weynaana ardayga marka maadooyinka oo dhan saasay u dhismayaan waxa kale oo u dhisan yahay manhajkan uu isku dhex jiraa textbook yani cunuga xisaabta baranayo waxa laga yaabaa inuu juqraafi barto waxa laga taariikh baranayo wuxuu baranayo luqad baranayo maxay la xisaabta waxa la weydiinaya mas'alooyin la weydiinaya inuu ka shaqeeyo waxay ku abuuraysaa fikir mas'aladaas waxay ku saleysnaanaysaa مثلا cabirka beerta oo kale ayaa tusaalahan loo isticmaalaa wuxuu baranayaa dhulkii uu baranaa wuxuu baranayaa juqraafiga oo dhulkii beerihii uu baranaya khayraadka yani waa maadooyinkoodana way isgalayaan way isku noqnoqonayaan waa cross cut marka hadda ilaa wasaaraddu waxay soo badhigtay ilaa galaaska afraad adina waxa ii sheegtay in manhaj ahaan ilaa waxa u diyaarsan marka buugta inta kale fasalada xigan iyagan goorma diyaar noqonaya qaab dhismeedka waxa diyaarsan ilaa ay fasalka 12aad haduu ilaahay raado waxa loo sameeyaa stage waxa la sameeyay hadda qaybtii ugu dhib badneed oo ahayd fasalka kood ilaa fasalka afraad dadku waxay u haystaan badana inuu ugu sahlan yahay koowaad iyo afraad laakiin ku ugu dhib maxay waa ina aliftaa hal cunug yar oo 6 jir ah ayaad rabtaa inaad wax fahamsiisid oo wax u dhigtid waa inaad
soo qaataa dhagxaantii markaa xisaabta u dhigaysa waa inaa farti aad usoo bilowdaa marka meelaha ugu adkaa waay runtii alxamdulilah waan kasoo gudubnay ilaa ay fasalka afraad way dhammaadeen hadda fasalka afraad 1 ilaa 4 dugsiga hoose hadduu ilaah yiraahdo sanad dugsiyeedkan waxaa lagu bilaabaya dugsiyada dhan waa lagu bilaabaya 5aad ilaa iyo 8aadna hadda waxaa socda haddana diyaarintoodii socoto waxaan rajaynaynaa ilaa bisha December 5aad ilaa 8aad dugsiga dhexe inay dhammaato sanadka January marka la bilaabana ilaa يعني أفرت سنة سعوتين أفرت كلا سنة لسيد دياري مساس مية أولي جدا ويكون أحسن عنيسا حالة ديسمبر إلى ديسمبر السنة دكسيت كلا أنت على جارين إني بوقت دكسي ده ديار نقطة دكسي السنة جنوري إلى إيو ماي أما جون إنه لما هذا سنة كده بوقت كان إنه دكسي سنة لما هذا ومنهج كي بوقت اللي نيجي لها ديار نقطة 2019 لابي سجالي تومانكا إنه ديار نقطة أو لابي تومان سجالي لابو كل سجالي تومانكا in uu ahaado sanad manhajkii Soomaali iyo textbookii ama buugti wax laga baranayo inuu diyaar noqdo buug wax la baranayo waxa la socda laftirkiisa buugi macalinka la socdo hal waan ognahay maanta macallimiinteena waxay u baahan yihiin kaalmo u baahan yihiin tayada macallimiinta runtii waxay u baahan tahay in aad kor loo qaado naftigeeda waxa la socdo marka buug oo la yiraahdo buuga macalinka suu u dhigi lahaa casharkan suu u dhigi lahaa waxyaabo arday weydiin lahaa xoogaan uu ka horeeyo kaasna wuu ku jiraa marka afarta buug hadda diyaar ka afarta subject oo diyaar macalinkan uu la socdaa kan macalinkan uu la socdaa marka inta iskuulada iyo ama gobolada imtixaanaadkiin uu ku ekaa buu ku bilaaban doonaa Soomaa wadanka dhan uu ku bilaabanaya intii ma aragtay hadda waxaan isla joognay April bishii April maamul goboleedyada wasiirada waxbarashada maamul goboleedyada waxaan ku kulanay Dhowsamareeb oo aan uga hadlaynay waxyaabahan waxaana go'aankii ama warmurtiyeedkii ka soo baxay waxa la isla qaatay in laga hirgeliyo manhajkan wadanka intii la gaari karo oo nabad ah in la gaarsiiyo hadda Puntland baa imtixaanaadkiina qayb ka ahayn wasaaradda iyadoo manhajkan way qaadanaysaa miya waxaan rajaynaynaa inay ma aragtay ay manhajkan qaadato waxay aad uga shaqaynaysaa in manhaj ahaan qaab dhismeedku waa isku mid qaab dhismeed ayaa yaala halkaas qaab dhismeedna Somaliland qaab dhismeedna Puntland iyo qaab dhismeedku waa isku mid ardayga jooga Garowe ama ardayga jooga Boosaaso ujeedada laga leeyahay waxa waa arday Soomaali ah oo muslim inuu soo baxo kan Hargeysa jooga waa arday Soomaali arday muslim saasa la rabaa laakiin iyagu ay la qaateen inay manhajkan Soomaaliland hadda iyadu hawsheedu waa hawl kale hadda uma maleynayo iska cadahay inaysan manhajkan hadda Puntland waxaan rajaynaynaa inay qaadato iyadana waxaan rajaynaynaa inay qaadato maadaama baalkan uusan ahayn wax ka hor imaanayo siyaasadda inuu ka hor imaanayo iyo dhaqanka iyo diinta waa gartay agaas aad u maasantahay su'aasha kale waxay tahay af Soomaali ku qoran yahay marka doodanay lama arkin wasaaradda dowlad badan ka sameynaysa in manhajka luqadda la qaadanayo kale hadda waxa ay sheegtay ilaa dugsi in af Soomaali uu noqonayo mise ilaa dugsi dhexe noqonayo marka secondary marka waxa luqad kale noqonayo mise waa luqadda in noqon lahayd waa go'aamisan saan mar hore aan sheegay manhajkan wuxuu ku salaysan yahay laga soo dhiraandhiriyay siyaasadda wadanka siyaasadda waxbarashada qaranka waxaa ku qoran in dugsiga hoose dhexe lagu baranayo af Soomaali dugsiga sarena af Ingiriis ama af Carabi ama af Soomaali in option la siiyo wali aan cadeyn way caddahay laakiin luqaddu rabo qof ku qaadanaya ama Ingiriis qaadanaya intaas way wada jiri karaan ama Ingiriis ama Carabi ama Soomaali ku qaadanaya laakiin buugu waa isku mid luqaddu buu kala duwan yahay maahe topiga iyo wixii laga hadlayo luqaddu rabo qof ku qaadanaya ta kale luqadda Soomaaliga waxaan rabaa inaan aad u iftiimiyo luqadda Soomaaliga yani intii aan la kulanay oo aad waa laga dooday markii la sameeyay siyaasadda qaranka waa laga dooday manhajka laftirkiisa waa laga dooday yani waxa oo yani la isku raacay waxay in af Soomaali laga dhigo waxa shaki la geliyay oo dood kadib dugsiga sare laftirkiisa in Soomaali laga dhigo laakiin xoogaa dooda xoogaa waxay u badatay waxa la yiraahdaa maadaama ardayga jaamacad uu sii galayo ha laga dhigo ma aragtay ay suurtagalta in jaamacadaha wadamo kale wax ka helo ha laga dhigayo laakiin in luqadda Soomaaliga lagu dhigo waxa waa wax la isku raacay oo adduunkan hadda theory ama waxyaabaha hadda socdo ama cilmi baarista socdo waa cunuga wuxuu wax ku baran karaa oo ugu fiican luqadiisa hooyo luqadda guriga looga hadlo luqadaas uu ku baran karaa marka taasna wax oo su'aal kama jirto waxaan rabnaa runtii af Soomaaliga in la xoojiyo sida kaliya uu aad loogu xoojin karana waa iskuulada lagu dhigaa waqti in lagu qoraa hadda waxaa qorshaysan marka buugga la dhameystiro xal manhajku
wuxuu kooban yahay qaab dhismeedkii kadib muqararkii sida dib uu galay ka bacdi buuggii wax laga baranayay buuggii macalinka kadib waxaa jiro agab kale oo taageeraya مثلا wuxuu u baahan yahay ardayga Soomaaliga markuu uu buugga Soomaaliga baranayo buugaag kale oo sheekooyin uu akhristo oo dhisay luqadiisa dhisay wuxuu u baahan yahay buugaag kale oo xisaab oo maaragtay oo si kale loo dhigay waxyaabo badan oo fududeynaya marka agabkaas mar horta textbookii markaa dhameeyay waxaan rabnaa kadib agabkaas hadana marka saddexda option ama fursad uu haysto ardayga dugsiga dhex ka baxa waa Carabi English iyo Soomaali miya saddexdaba Soomaaliga ku jira labada luqad kan Soomaaliga waa luqadaas waa marka qofkii ardayga marka dugsi dhexe Soomaali ku soo barto kale markuu qeybaha Englishka iyo Carabiga aaday soo caqabad soo kala ma kulmaayo caqabadaas waan ka fikirnay dugsiga af Soomaaliga marka hadda la dhigayo maadooyinka oo dhan luqadda Carabiga waxa lagu bilaabaya fasalka koowaad maad ahaan lagu dhigaya maad ahaan lagu dhigaya fasalka koowaad tarbiya islaamiyana waxa lagu dhigaya Carabiga lagu dhigaya soo marka wuxuu haystaa laba maado oo Carabiga ka xoojinayso ta kale cunuga intaan fasalka lixaad lagu soo bilaabin wuxuu qaataa dugsi quraan uu soo dhigtaa dugsi quraan kale waxa laga yaabaa sidii hore u dhacdo kale in maadooyinkaas oo kale maadaama aysan ardaydu uusan u arkeenin in muhiim ahayn oo inuu fududeysto maadaama secondary ama af Soomaali uu ku dhigan karo oo ka horeeyo kale mise waxa jira qaab ah in maadooyinkaas muhiimad gaar ah oo siiyaan oo ardayga uusan fududeysan qaab waxaa jiro hadda oo ardayga inuu fududeysan koo tan kale qaabka loo dhigayo laftarkeeda habka loo dhigayo waxaan rabnaa hab casri ah oo ah waxa la yiraahdaa nidaamkan cusub wax loo dhigayo in ardayga uu noqdo xuduntii waxbarashada meesha awal macalinka intuu soo istaago uu wax ku aqrin jiray ardayga oo inuu fahmay in kale oo kadibna ardayga intuu soo xifdiyo oo dib ugu soo celiyo waxaan ka dhignay hadda nidaamka oo manhajka u sameeyay waa nidaam ardayga iyo xuduntii shaqada inteeda badan ardayga qabanayo marka ardaygu waa inuu wax qoraa waa inuu wax soo diyaariyaa uu ku qasbayaa marka inuu luqadii ku practice gareeyo oo luqadii uu si fiican maxay waa inuu soo istaagaa presentation waa inuu sameeyaa waa inuu dadkii la hadlaa waa inuu yani habka loo dhigo ayaa ka duwan carabiga kaliya maaha ingiriiska laakiin ingiriiska waxaa lagu bilaabayaa fasalka saddexaad ilaa fasalka sideedaad uu dhiganayaa maadada ingiriiska laakiin maadada carabiga ah wuxuu bilaabayaa fasalka koowaad labada fasal kale in ingiriiska lagu bilaabo maxaa caqabada ku jira caqabadaha ku jira waxa waaye waa waxay u keenaysaa cunuga markuu yar yahay xoogaa waxaa imaanaysa confusion waa imaanaya cunugii oo yaroo fasalka koowaad ah markii carabi iyo ingiriis iyo af Soomaali saddexdooda la isugu dhigo xoogaa waxaa la isleeyahay armuu maaragtay oo la isla qaadi waa luqadihii inkastoo ciyaalku ama maskaxda bini'aadamku ay aad maaragtay capacity u sareyso haddana bal inuu carabiga iyo af Soomaaliga si fiican ula qabsado maadooyinkii la qabsado kadib fasalka saddexaad soo carabigii iyo Soomaaliga la haysto maadooyinkii la qabsado fasalka saddexaad looga bilaabo laakiin habka buugta loo diyaariyay waa ka duwan tahay hababkii hore dad badan qaba in Soomaaliya oo hadda inkastoo af Soomaali wax hore loogu soo bartay in buugta iskuulada lagu dhiganayo iyo manhajka si guud inuu ilaa dugsiga hoose Soomaali noqdo hadiiba Soomaaliga laga maarmi karo inta kadibna luqadaha Ingiriiska waliba dadku xoog ay saaraan Carabiga aan ahayn ama Carabiga ay ku bartaan maadaama eray bixinada Soomaaliya aad ugu yar yahay duniduna ay horumartay teknolojiyada la horumaray dalkuna de jaamacadaha Soomaali lagu bartaan oo san lahayn Soomaali badan ay waxbarashada barnaamij ku aad kuwaas maxaa kaga jawaabaysaa jawaab sahlan waxay tahay luqad waxa horumaray dadkiisa haddii anagii Soomaali ahayn aan luqadeena ka cararno aan dhahno Ingiriis wax lagu barnaa Ingiriis la aaday yaa horumarnay luqadii annaga mas'uuliyadeen ay tahay luqadeena waa annaga inaan horumarino annagina kama carari karno luqadda eray bixinta dugsiga sare aniga af Soomaaliya ku soo dhigtay ilaa dugsiga sare af Soomaaliya uga baxay waa kartay jaamacadda Ingiriiska ku qaatay dad baa dugsi sare uga soo baxay jaamacadda Talyaaniga ku qaatay wixii gaheer gali jiray laakiin dhibaatooyin kala kulmeen oo laakiin waa laga baxay oo hadda waxa waaye waa qofna ma jirto kale dadku waxay u baahan inay fahmaan luqadda iyo cilmiga way kala duwan yihiin cilmiga luqadda aragta ku baran kartaa dadka Chinese-ka Chinese ku bartaan Ruushka Afraashiya ku jirta ay ku bartaan ummad kasta luqadeeda ku bartaa laakiin dawladahaas ayagoo soo weyn bilowgooda marka taariikh dib loo fiiriyo Turkiga kale luqadooda wax ku bartaan xilli dhow la bilaabay inta ka horreysay luqado kale wax lagu baranay dalku markuu asaga awoodiisa u arko oo jaamacado luqadaas afkaas dalkaas leeyahay wax lagu baranayo kale waa laga yaabaa in awood u leeyahay wadanka inuu sameeyo laakiin wadanka Soomaaliya kale xoogaa wuxuu u baahan yahay kabasho badan u baahnaan waa runta laakiin taariikhda Soomaaliya kan bilaabato 90 kan bilaabato taariikhda Soomaaliya waxa la rabaa markii taariikhda laga hadlayo
in maxaa ka horreeyay sagaashanka in la yidhahdo sagaashanka waxaa ka horreeyay soomaaliya waxay noqotay wadamada yani literacyga ama maaragtay dadka aqris qoraalka dadka ugu sarreeya noqotay waxa lagu gaaray waqti kooban 1900 af Soomaaliya 72 iyo 23 ka hor ma qorneen 73 ayaa la qoray 73 markii la qoray af Soomaaliga yani 1980kii lodkii dugsi sare ka baxay af Soomaaliya uga baxay marka 73 ilaa 80 markaa fiiriso waa 7 sano gudahooda waay 7 sano gudahooda ayaa dugsi sare looga baxay luqadii oo markaas la qoray yani haddii waxa juhdi la geliyo waa la sameyn karaa aad uma santaa mana baan inaan gadaal u noqono hadda oo waxaan rabnaa waxaan waa soo aragnay Soomaaliya waa ku soo dhigin jirnay dugsi sare waa looga soo baxay يعني هذا واحد dhibaato weyn ah cabsi ma ka qabnaa la okay macallimiinta marka iyagu hadda macallimiin dhalinyarada wax dhigta hadda waliba iskuulada jaamacadaha dhalinyarada dhigta iska dhaaf dugsiyada hoose iyo dhexe oo ayagana luqado kala duwan wax ku barbartay carabi ingiriis Soomaaliga naftikooda ku macallimiinta naftikooda xooganay hadaa waa ii sheegtay buug macalinka kaaba ay jira macalinka kaabida buugaas marka laga yimaado waqtiga bilaabanayaan waa sanadkan saa sheegtay soo iyada naftigeeda macallinkii ardayga oo ayagu waxbarasho labadooda wada rabaan soo wax ma bilaabanayaan waa runta laba arrimood oo Soomaaliya waxay u baahan tahay waxbarasho in xoog la saaro annagana hadda focuska ama diiradda waxaan saarayno waa macallinka iyo agabkii wax laga baranayo labadaas hadii la isku helo wax weyn ayaa wadanka waxbarashada ka bedelmaya qaasatan macallinka waa runta macallinku qorshaha waxa ku jirto curriculumka hadda buuggii waa la qoray marka buugtii la qoro qorshaha waxa ku jirto in macallimiinta lagu tababaro manhajkan cusub in lagu tababaro oo sida loo dhigi lahaa iyo manhajka in lagu tababaro tababar gaar in la siiyo hadda intuu iskuulku xiran yahay in la siiyo kormeerayaasha laftirkooda in tababar xoogna la siiyo oo hadhow marka iskuulka tahay waxyaabaha ay fiirin lahayn in la tababaro marka qorshahaas uu diyaarsan yahay in intaas yarta laakiin waqti waa yar soo kuma filna in intaas lagu tababaro maadaama macallinkan uu awalba macallin ahaa oo way aragnimo uu dhinaca kale uu leeyahay waxa ka dhimo oo hadda ku cusub waa sidii uu manhajkan cusub uu u dhigi lahaa oo la qabsan lahaa taasna waa ku dadaalayna tan kale macallimiinta xaruna in xoog la saaro inta hadda wasaaraddeena iyo xukuumaddan cusub markay timid oo wasaaradda waxbarashada waxyaabaha ahmiyadda waxbarashada la siinayo waa macallimiinta haddaadan helin macallin tayo leh haddaadan helin waxbarasho tayo leh waddankan ma helayso dowladda dad ka warqabto macallinkii waxay ahayd markii ugu horeysay oo budgetka dowladda miisaaniyadda dowladda lagu daro mushahar macallin waa markii ugu horeysay laga soo tago intii dagaalka marka waxay ahayd $300 in macallinka la siiyay meesha aw $60 ama $100 la sii jiray budgetka waa lagu daray ilaa ay 300 konton waxaa siinay stateska 100 waxaa la siiyay gobolka Banaadir marka macallimiintaas waxaa socda hadda processkooda iyo waxaa dhamaaday hirgelintooda marka macallinku waa in la dhiirigeliyaa wax looga cararayo macallimiintu waa malaha mushaar fiican malaha qof rabta inay barato ma jirto marka mushaarka in la xoojiyo taas la sameeyo tan kale waxaa jiro kale in kuliyadaha waxbarashada in la xoojiyo oo faculty education in qaybta waxbarashada teacher training in xoog la saaro hadda qorshe waxaa ku jirto in laba college laga dhiso labadan state meesha u dhaxaysa Hirshabeelle iyo Galmudug dhexdooda in college waxbarasho laga dhiso labadan gobol kale South West iyo Jubaland dhexdooda in laga dhiso teacher training college oo meeshaas macallimiin laga soo saaro xamarna Somali National University jaamacadda ummadda Soomaaliyeed in xoog la saaro iyo jaamacadaha kale oo soo saaray oo private ka arrintaasna xoog inaan saarno si macallimiinta tayo loogu yeelo hadii kale waxbarashada tayo ma noqonayso aad iyo aad buu u mahadsan yahay xasan maxamed cali ayuu kaasi ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo barnaamijka wardheere martii uu ahaa